marka runtii mar labaad aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa maanta waa maalin weyn ugu horeyn waxaan u mahad celinaynaa taliyaha ciidanka booliiska oo muddooyinka ugu dambeeyay isaga iyo tiimkiisuba nagala shaqaynaya arrintan oo runtii gacan buuxdana naga siiyey in maanta halkan aynu fadhino aasaaska ciidanka ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta oo runtii dadaalada deegaanka lagu ilaalinayo qayb laxaadle ka qaadan doono markaa farxad gaaray noo tahay waxaynu halkan maanta ku daahfuraynaa aasaaska unuga ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan ciidanka ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta waxaa loo aasaasay 3 qodob haddaan soo koobo ilaalinta khayraadka dabiiciga ah oo khayraad badan oo dabiici ah baan leenahay khayraadka badan dabiiciga ah waxa lagu talagalay inay taageeraan Ilaahay u sameeyay ama ay sal u noqdaan nolosha bini'aadamka iyo nolosha kale ku nool Soomaaliland guud ahaan la dagaalanka dambiyada deegaanka ayaa isaguna qodob muhiim ah maadaama khayraadka dabiiciga haysano waxa muhiim ah in ay dhacaan waxa jirta ama si guud uga jirta Soomaaliland oo dhan inay dhacaan dambiye ka dhan ah deegaanka kuwaas oo caqabad ku ah nolosha bini'aadamka duurjoogta iyo xoolaha aynu dhaqano oo laf dhawr u ah dhaqaalaha iyo nolosha ummadda reer Soomaaliland iyo in la xaqiijiyo ama la fuliyo shuruucda kala duwan ee deegaanka ee qaranka Soomaaliland samaystay maanta waa maalin muhiim ah oo aynu isugu nimi aasaaska ciidankaas loo doortay loona tababarayo inay ilaaliyaan deegaanka duurjoogta iyo wixii la halmaado wixii aan nool dadka ahayn ee ku dhex jira meesha aynu degannahay ee adduunka aynu ku noolahay oo la ilaalin doono insha Allah cimilada iyo saynu ugu noolaan lahayn adduunyada waa rag ilaalin lahaa weeyaan haddii geed la jarayo haddii duurjoogta la dhibaataynayo haddii meelaha godadka laga tagayo ee habeen maalin lagu sameeyo chemicalka laga baarayo maxaa la yiraahdaa dahabka iyo macdanta waxa soo dhan waa nimanka ilaalinaya weeyaan maanta marka waa la dardaarmayo waxaan leeyahay tababarka la idin furay waa inaad ka faa'iideysataan waa inaad weelaysaan ciidan baa hay'adda tababarka iyo discipliinka marka hore waa la haydeen laakiin intii anagana loo dheeraadka deegaanka aan insha Allah tababarka ina ka faa'iideysataan ayaan maanta insha Allah idinku waalinayaa كل initiative كان وinitiative وزير عبد الله ليمي إلهي بركيه oo dawladdan ugalwadeenka ka yahay mudan Cabdiraxmaan ay asaaskii ugu horeeyay lahayd hore waa looga shaqeyn jiray deegaanka laakiin waqti law enforcement xoogaho loo tababaro ciidan hore uma inaan lahayn marka waa markii ugu horeysay credit-kana wasiir Cabdullaahi baale oo isagu initiative ka la yimid deegaankeenna in badan baa la dhibaateeyaa waxaad arkaysaa in ay dabaylo badan baryahan dambe deegaankeenna ku dhacaan waxaad arkaysaa abaaro fara badan oo soo noqnoqonaya waxaad arkaysaa roob la'aan badan oo jirta waxaasoo dhan waxa kow ka ah in dhulka laga Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu u badan yahay safarkaagu waxaad isticmaali kartaa abka dahabshiil familkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horeysa oo ku dirtana waa free